maanta 2025 iyadoo la marayo lama filaynin ama lama sugaynin in aabba Soomaaliyeed oo xanuunsan oo dhimirka looga jiro in aana qabil daraadiisa loo gubo lugaha laga garaaco kuleedahay maaragtay xoog dulmin dadka raaciyada masaakiinta oo kaamarka soo duubay qof kastoo gacan ka geystay odaygaas dilkiisa qof kastoo dhibaato u geystay odaygaas masaakiinka hala soo qabto waa in sharciga la soo istaajiyaa waa in maamulka koonfur galbeed iyo dawladda in ay soo qabtaan waa ninka waa in tiirka la geeyaa badi iyo hub aad ku leedahay maaragtay xoog dulmin qof kastoo dabka shiday odaygaas dhibaato u geystay waa in 48 saac gudaheed la soo qabtaa tiirkan la geeyo xitaa ninka qof u soo doodi karo ama qof waxa waay ka hadli kara xitaa ma jiro wallaahi oo billaahi oo tallaahi ninkaas sida loo soo wado tiirka la geeyo sababtoo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ahay Mr. Kalimatani haddii tahay markaa kugu horeyso aad soo booqato waad ku maasan tahay booqashadaada customer care hadaa tahayna waad ku maasan tahay la joogitaanka fadlan YouTube-ka subscribe siina share garay waxaa cusub maanta waxaan ka hadlaynaa 24 saac la soo dhaafay baraha bulshada waxyaabaha ka cusbaa ama dadka waxyaabaha ay hadalhayeen hal iyo laba ayaana ka dhihi doonaa ra'yigeena waa ka dhimin doonaa sax iyo khalad waxay ahaayeen waan sheegi doonaa dhacdooyinka ugu xanuunka badan ee 24 saac la soo dhaafay na soo maray ama baraha bulshada soo galay waxa kamid ah aabba 70 sano jiro oo maskaxda looga jiro oo xanuunsan ayaa lagu gooyay magaalada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose dhacdadaas waxay noqotay dhacdada ugu hadalhaynta badnaa ee baraha bulshada soo galiyo maanta 2025 iyadoo la marayo lama filaynin ama lama sugaynin in aabba Soomaaliyeed oo xanuunsan oo dhimirka looga jiro in aana qabil daraadiisa loo gubo lugaha laga garaaco qoryo iyo qashin ay madaxa u galiyaan dabka ay qabasiyaan wax maanta 2022 la filinayo ma ahayn taas oo Soomaali ceebtii ugu weyneed waxa waay soo marta noqonaysa mugdiga uu xumaa ee Soomaali ay gasho intaas sano la dagaalayay taas ay noqon doontaa wali Soomaali ma dhicin aana qabil waa la isku dilay ilmaha waa la iska dilay naagaha waa la iska dilay wax kasta waa la sameeyay laakiin wali ma dhicin in aabba 70 jir ah oo xanuunsan dhimirka looga jiro in la soo qabto oo la xirxiro la jirdo si xun loo galo ka bacdina waxa si xun loo dilo oo dab la qabadsiyo wali Soomaaliya kama dhicin waa markii ugu horeysay waaye magaalada Wallaweyn gaar ahaan gobolka Shabeellaha Hoose aana qabil daraadiisa loo dilay wax kale looma dilin qof kastoo oo kaamarka soo duubay qof kastoo gacan ka geystay odaygaas dilkiisa qof kastoo dhibaato u geystay odaygaas masaakiinka hala soo qabto waa in sharciga la soo istaajiyaa waa in maamulka koonfur galbeed iyo dawladda in ay soo qabtaan waa ninka waa in tiirka la geeyaa sida hadda halkan aad ka daawan kartaan xoog dulmin dadka raaciyada masaakiinta dadkaas ay u jeedaan ee kaamarada la ordaayo oo ninka dilaayo oo lugaha ka garaacayo oo qoriga wato oo dhalinyarada leh weeyal kale oo meeshaas garab orday waa la soo qaban karaa sababtoo ah kaamarada iska soo duwan wajigoon waa loo wada jeedaa qof kasto waa la yaqaan deegaan uu leeyahay dad uu leeyahay waa la yaqaan waa la soo qaban qof kasto dabka shiday odaygaas dhibaato u geystay waa in 48 saac gudaheed la soo qabtaa tiirkan la geeyo xitaa ninka qof u soo doodi karo ama qof waxa waay ka hadli kara xitaa ma jiro wallaahi oo billaahi oo tallaahi ninkaas sida loo soo wado tiirka la geeyo sababtoo ah dhibaato wuxuu u horseeday ummadda Soomaaliyeed in ay isdagaalaan aana qabil ay isku baabi'iyaan hadda maanta adin la hadlay waxaa dhacday maamo 50 jir in la dilo 4 cunugoo ay dhashan dabka la qabadsiiyo halkan ka daawa fiirso meeshaan waxaan lama dhowran kare dhawaaqa loo kacay marqula diidiyo kacay ruuxii loo kacay damirku intaadina lukeena difaacane undaliyo kacay si hadda halkan aad ku daawateen 4 cunug iyo hooyadood oo hurdaay aad dabka la qabasay wixii hantida yaalan waa la gubay guryihii iyo balkii iyo wixii bini'aadanka uu ku dhaqaaqi lahaa oo dhan noloshooda oo dhan waa dabka la qabadsiiyay xaaladda 24 saac la soo dhaaf cirka ee isku sii shareertay iyagoo ka gadoodsan dhibaatadii loo geystay ninkii 70 jirka ahaa ee shalay duhurkii la gubay haddii aan gudgalo isla 24 saac gudihiisa haddaan u gudgalo Hargeysa waxaa ka dhacay xaafadda October aabba xanaaqsan oo hooyo ilmaha hooyadood u xanaaqsan ama isku dhacsanaayeen ayaa waxa uu gubay hooyadood iyo 4 cunug asagoo dhalay 3 wiil
iyo hal gabar asagoo dhalay uu dabka qabadsiiyey sida sawirkan u jeedaan idinkaga muuqdo أسبوعان وأسبوع الدبكة اللي كان وحكة لو قلت المامي كرو مجرته أسبوعا وأسبوع يودبك بدنا دات يكون رمضان واحد أفر ميلا لو جبي أفر كلي هويل ميلا لو جبي هل نجونيا لو جبي أسبوعا دبك وفعل ونغ فعل عادي ونغ والله بالله ولا يابين هاي هرجيسين دعدا ساكن علي وحالة شيء وربعين سيدا يقرأيسو ninka iyo hooyada la gubay in ay istagaashanayeen dagaalkaas xitaa heer maxkamad in uu gaaray ala sheegay xanaaq uu qabo daraadiisu uu gubay kulay qofkaas qof iyo ma ahan asagnaadkiisa waa qof iska xanuunsan oo malaha qof hooyo ilmaha hooyadood iyo ilmihiisa gubaayo qof menaha miir qabo ma ahan wax miir qabo ma qofkaas dhacdooyinkaas ugu hadal heenta badnaa 24 saac la soo dhaafay ay idin xasuusiyo dhacdadii ugu hadal heenta badneed oo iyadana wax bin aadanimada ka baxsan noqoto waxay ahayd dhacdadii ka dhacday isbitaalka Banaadir hooyo xaamil ah oo bilaheeda dhameysatay isbitaalka intay tagtay banaanka loo soo bixi iridta horteedana ku dhashay qof wax u qabtay malahan security-ka taagnaa sidoo kale waxa taagnaa dhaqaatiirtii iyo baawarta ambulance-ka waa la wada fiirinayay cunuga markii dambe waa uu dhintaa dhacdadaas waxay ahayd dhacdadii ugu hadal heenta badnaa 24 saac la soo dhaafay ay kamid ahayd intaas baraha bulshada ugu cusub hadii aad nagu cusub tahay fadlan like saar share garay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ciao ciao